dagaalkii Qaadisiyo nimankii Furus ahaa markay saxaabada la dagaalamayeen waxay soo kaxayseen maroodi aad u fara badan maroodigaas dhowrka xabba ee faraha badnaa ee lagu dagaalamayay mid midab cad leh baa hogaaminayay kuwa kalena way ku doofaydayeen saxaabada markii la dagaalamo dee maroodigii baa dagaalamaya dadkii baabiinayo saxaabo badan baa la laayay maalintii koowaad habeenkii nin walba waa seexday nin saxaabi baa seexan waayay wuxuu yidhi maroodiyadan dadka saxaabada laayay ee fardihiiba ay ka cararayaan sidee horta maroodiga koowaad ee hogaaminaya kuwa kale sideed ku dishaan habeenkii dadkii kale waa seexday isagoo hurdo waa qoon weyday wuu soo kacay wuxuu sameeyey yacni maroodi dhooqa uu ka sameeyey ayuu hagaajiyey faraskiisii uu soo qaaday waa xagga maroodiga buu la soo aadaa maroodigu uu hagaajiyey faraskana dee maroodigan weyn markuu arko dib unbuu oga soo cararay soo markii dambe ugu tarbiyeynaya habeenkii horna ugu celcelinay markii dambe faraskiisii wuxuu la qabsaday maroodiga subaxii waagii baa baryey waa la tukaday dagaalkii baa la isku diyaariyey dagaalkii baa la galay faraskiisan maadaama maxaa dhan uu soo layliyey subaxii markii dagaalka la galayba wuuna sii daayay faraskii isagiiba say u ordayeen maxay aadeen maroodigii weynaa ee dadka laynayay ee kuwa kale horkacayay boos ka galay war waxaa la yidhi war maroodiga amuu ku dilaa baa la yidhi war wuxuu yidhi dhib ma lahan buu yidhi haddii mar maroodiga aan muslimiinta ka hor leexiyo ay muslimiinta dhulka furtaan wuxuu yidhi nafteeda wax qiimay ku fadhida male dagaalkii buu galay maroodigii weynaa buu dilay maroodigii intii kaloo soo harta waa kala carray macnaa waa maxay mawhibadu ilaahay siiyey ee geesinimada ahayd waa boojii la rabay iyo booskii loogu talagalay ayuu dhigay